Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halka aad naga daawanaysaan waa barta Dhaymaale oo aad alaab kaga barateen inaan kaga hadalno suugaanta Soomaalida iyo waxyaabaha la xiriira. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan soo raac dhammaan baraha Dhaymaale, YouTube-ka, Facebook-ga iyo TikTok-gaba. Haddii aad horey noola joogtayna like noo saar, muuqaalka share garee, commentigan halka afaalada hoose nagula wadaag. aan gudagalnay sheekadeena maanta waxaan kaga hadli doonaa maxay fanaaniinta Soomaalida uga baxayaan fanka Soomaalida, maxaadan ka ogeyn fanka Soomaalida iyo sidoo ku bilowday fankan casriga ah hadda aan naqaano. Ka hor bartamihii qarnigii aynu soo dhaafnay, Soomaaliya waxa ay lahayd suugaan iyo hoobalo heesa munaasabadaha, maalmaha ciidaha, xilliga farxadda iyo maalmaha barwaaqada. Hoobaladaas ka heesaya munaasabadaha dadka ay lahaayeen waxay ahaayeen kuwo raacada danahooda u gaarka ah, kuwa xoolo leh, kuwa beero qota iyo kuwa xamaasho oo noloshooda ka kasbada shaqooyinka. Hoobaladaas dantooda gaarka raacda ayaa ahaa kuwa ummadda u heesa oo madadaaliya kala qayb qaata farxadahooda iyo munaasabadaha gaarka ah. Intaas kadib waxaa soo gaaray fankan casriga ah oo ka soo galay Yemen iyo Hindi. Waxaa fankan uu watay hawlo badan oo hore u aqoon sida muusikada iyo qalabyadan tirada badan ee la garaaco. Sidoo kale waxa uu la yimid hoobalada heesaya inay noqdaan kuwo curyaama dantooda gaarka raacanin ayagoo fayow fadhiid noqda, taasoo keensatay in hoobalada heesa ay noqdaan kuwo dan yar ah oo markasta aad maqasho dhibaatooyinkooda waxyaabaha laga soo wariyo. Intaas waxaa maqlaysaa fanaan baa dhibaataysan dalka gudihiisa ama dibadiisa ama hal abuur sida dadka u yaqaanaan abwaano. Fankan dhibaatooyinkiisa oo aad u tiro badan oo la koobi karin waxaa ku jira qisooyin aad u xanuun badan oo ay ka mid yihiin in hoobalo Soomaaliyeed ay isgubtay nafta iyada ay isdhaafiday. Shaqo kasta oo la qabana waxaa loo qabtaa in adduun iyo aakhir wax kaaga ziyaadaan, sida in xoolo lagu helo, magac lagu helo, deganaansho nafsi lagu helo, aakhirana ajir iyo xasanaad laga tirsadaa. Fanka Soomaalida ma lahan waxaan ka ahayn magac iyo caanimo waxaan ka ahayn male, oo xoolo lagama sameeyo, deganaansho nafsi laguma dareemo, oo wuxuu leeyahay fanka laabhur. Qofku wuxuu ku kiciyaa xaaladaha urugada leh ayuu ku kiciyaa, wuxuu cagsi ku yahay aayadaha quraanka oo Ilaahay ku yiri alaa bidikrillahi tatma'innul quluub. Heesaha ma leh deganaansho nafsi ma leh, fanaaniintu kuma dareemaan raaxo, kuma dareemaan xoolo, kama tabcaan, waxa ay warwar ka dareemaan aakhiradooda iyo mustaqbalkooda dambe ayay u cabsadaan. Taasaa ku kalifaysa in isaga baxaan hal iyo laba fanka isaga huleelaan. Inta la ogyahay waxaa fanka ka baxay hoobalo tiro badan. Waxaa ka mid ah Zulfa, Aways Khamiis, Cabdullaahi Diiriye Sooraan, Qadra Daahir Cige, Hiba Maxamed, Qamar Cabdilaahi Harowo, Aamine Cabdilaahi Xirsi iyo hoobaladii dambe ee ka baxay Cabdihani iyo BK. Waxaa toddobaadkan gudihiisa fanka isaga baxay Cawaale Aadan iyo Barwaaqo Qalanjo. Intaasi in ka badan ayaa isaga baxay fanka. Inta ku jirtaana kuma dareemayaan raaxo iyo kuma dareemayaan deganaansho. Iyagana Ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inay isaga baxaan. Waxaa ku jiray qalad gabadha Barwaaqo markay ka baxday soo dhaweyn loo sameeyay baa gabar tiri waxaan soo dhaweynayaa gabadhan, taasoo laga dhigayo in gabadhan aysan hore islaam u ahaynba. Taasna waxay ahayd fogaanshiyo la fogeynayo fanka. Ashir Bacaadle wuxuu yidhi hoobal iyo fan Soomaaliyeed hodan ma yeeshaane, nin hooyadii xajka geeyey oo heesaa lama sheegine. Fanka wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo faqriga ku jiro oo qofka ka dhigta qof fadhiida oon shaqaysan, xamaalin dantiisa gaarka ahna raacanin. Ma jiro qof muslim ah oo laabtiisa in yar iimaan ku harsan tahay oo jecel inuu macaasi ku dhinto. Fanka Soomaalida waxaa gudihiisa ku jiro waxyaabo aadan ka ogeyn oo dhaafsiisan durbaankan iyo gabdhahan qaawan iyo isdhexgalka, macaasi iyo xumaato aan af lagu koobi karin, kaliya uun ogyahay qofkii dhexgalay ama kala socda hawlihiisa gudaha ah la socda. Taas ayaa keensanaysa qofkii iimaan ku dambeeyo inuu isaga cararo oon ku hamiyo maalin uun inuu isaga baxo. Waxaa jira dad badan oo ku fikiraya inay isaga baxaan oo weli ka bixin. Waxaa ku riixaya oo ku jiidaya naf iyo shaydaan oo markasta qofka u jiida dhanka xumaanta ah. Hoobalada iyo hal abuurada Soomaaliyeed waxay isugu jiraan kuwa magaalo ku dhashay, ku koray oo wax fahmay deeta fanka galay, iyagoo magac iyo mansab iyo maalka raadinaya. Waana kuwa ugu badan ee isaga baxa fanka. Dadkii baadiyaha ka soo galay ama yaraan ku galay oon wax badan fahmin oon cilmi iyo aqoon u kordhin, waa kuwa ku qanacsan oo inay isaga jiraan door bidaya.
waxaan ilaahay uga rajaynaynaa qof kasta oo muslim ah oo macaasi dheeraatay ku jira inuu ilaahay toobada waafajiyo oo ka saaro. waxaa howlada fanka ku jira ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay hadeeyo, kuwii hore uga baxayna inuu ilaahay toobada ku sugo oo uu waafajiyo qaatimo wanaagsan. fanku uu fiican yahay waa goorma markii uu yahay kii hore ee Soomaalidu lahayd, oo gabdhaha qaawanayn, durbaanka casriga ah oo meelaha naga soo galay ku jirin, iyo ikhtilaadka iyo howlahan dambe aanu ku jirin oo munaasabadaha gaarka uun loo adeegsado. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa mowduuceennii maanta muhiimka aan kaga hadlaynay fanka Soomaalida iyo sababta ay fanaaniintu uga baxayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.